رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم marka hore dhamaan bahda saxaafada iyo dhamaan cid kasto oo halkan igala maqlaysa ama iga daawanaysa assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan doonayaa maanta halkan ugu tala galnay anigoo ku hadlaaya afkii dhamaan bahda garsoorka afka maxkamada waddanka oo dhan iyo afka guddiga cadaaladda inaan uga mahadnaqno madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland go'aankii taariikhiga ahaa uu dekreetadii uu soo saaray shalay oo la xidhiidha maxay ahaydey in garsoorka oo muddo dheer kala qaarnaa oo kala qaybsanaa in la israaciyay oo waxa weeyaan budgetka maxkamadaha hoose ee waddanka mushaharooyinkooda kharashaadkooda dhamaan dhaqaalaha maxkamadaha hoose oo dhan ku baxo dhan laga bilaabo maxkamadaha rafcaanada ee appeal court wax loo yaqaano ee waddanka oo dhan iyo wixii ka hooseeya maxkamadaha gobolada maxkamadaha degmooyinka waxa muddo dheer si ku meel gaar ah gacanta ugu hayay wasaaradda cadaaladda waxa kale oo ay iyagana si ku meel gaar ah ugu hayeen shaqaale hoosaadka registriga maxkamadaha ee ay ka mid yihiin kaaliyayaasha gaarsiiyayaasha adeegayaasha kale ee shaqaalaha marka labadaasiba waxay haayeen laba arrimood oo runtii garsoorka ka tirsan waaxda garsoorkana ka tirsan inay garsoorku maamulaan ay ahayd laakiin muddo dheer ay halka ku haysay aragtidan marka laga duulayana saynu inagu ognahay jamhuuriyadda Soomaaliland waa dal xor ah oo madax bannaan oo qaatay nidaamka axsaabta badan oo ay rukun u tahay saddexda hay'adood ee qaranka ama waaxood ee qaranku inay kala madax bannaanaadaan iyagoo iskaashanaya wada shaqeynaya waa waaxdan garsoorka iyo waaxda fulinta iyo waaxda xeerdejinta marka tani waxay xoojinaysaa waaxda garsoorku inay si ful ah u madax bannaanaato si ay u qabato laba arrimood arrinka koowaad waxa weeye si ay go'aamadeeda cadaaladeed ay u gaadho iyadoo madax bannaan marka madax bannaanidii bay xoojisay arrinka labaad ee kale waxa weeyaan in ay waxay xoojisay impartiality dhexdhexaadnimadii oo garsoorka waxa laga filayaa garsoore kasta ama maxkamad kasta go'aanada ay qaadanayaan iyagoo oo madax bannaan oo aan cidina faragelinayn wax faragelina cidna ha ka habranayn cidna ka baqaynin inay dadka cadaalad u falaan waxa kale oo laga filayaa inay iyagoo dhexa oo impartial ah oo aan dhinac u leexanaynin waan u iilanaynin ama dan dhaqaale eegin mid qabiil eegin mid kooxaysi eegin mid cilmi eegin inay go'aan ku gaadhaan arrintan marka shalay toole madaxweynuhu runtii go'aankan uu sameeyay oo muddo aan u ololeynay waxay labada arrimood bay xoojisay oo maanta waxa weeye garsoorku kala qaarnaantiisii uu israacay oo budgetkiisii maxkamadaha hoosena isaga maamulaya maxkamadda sare lagu wareejiyay shaqaalihiisii marka horeba waxa lagu wareejiyay maxkamadda sare arrinka labaad ee kale waxa weeyaan waan u iman doonaa dad badan ba ka qayb galay oo u mahadnaqay hadii la yiraahdo laakiin waxaan ka horeysiinayaa marka la eego arrintani taariikh ahaan say ku timi bilowgii markii jamhuuriyadda Soomaaliland la bilaabay maxkamadda sare maamuli jirtay laakiin si ku meel gaar ah ayaa sanadii 96kii madaxweynihii maxamed xaaji ibraahim cigaal Allah u naxariistay uu si ku meel gaar ah ugu wareejiyay intii dastuurkii la qorayay la doonayay dastuurka in la dhameeyo oo waxay ahayd maxay ahaydey inay si ku meel gaar ah ayuu dekreeto ugu wareejiyay waana dekreetada uu madaxweynaha shalay toole oo faruul galeeyay uu saxay uu tan ku saxay marka waa 96kii dekreetadaasi waxaana loogu tala galay inta dastuurka dhameystirmayo dastuurkii jamhuuriyadda Soomaaliland uu dhameystirmay maxay ahaydey waa taa ogeydeen oo 2001 baa loo codeeyay waaxda garsoorka si fiican buu madax bannaanay waxa uu sameeyay guddi cadaaladeed oo garsoorayaasha iyo xeraalayaasha magacooda waxa lagu xuseynay madax bannaan yihiin waxa kale oo maxkamadda sare ee dastuuriga iyo Supreme Court-ka gudoomiyaheeda waxa dastuurka cusub uu ku daray in labada aqal ee baarlamaanku markuu madaxweynuhu magacaabo ee uu soo jeediyo in labada aqal ee baarlamaankuna ay u codeeyaan marka la magacaabayo marka xilka laga qaadayo wixii dastuurka ka horeeyay shirgudoonka ayay madaxweynayaashu kala tashan jireen shirgudoonku ma loo yeeri jiray xubnaha baarlamaanadu ma codeyn jirin marka waa dastuurkii waxa soo dhan la yimi waxa ahayd marka in arrintan marka la raaciyo labadii madaxweyne laakiin cigaal
isagoo arinta dhameystiran waa kii muddo gaaban muddo sanad ka yar ku geeriyooday aftii dastuur kadib markaa sidii bay ku socotay markaa arintan waxay ka mid ahayd qodobadii markii aniga gudoomiyaha maxkamadda sare la magacaabay intaan la iba dhiibin aan madaxweynaha u soo jeediyaan ku madaxweynaha qodobadaas waa qodobada asaasiga in garsoorku sharaaco runtii wuu aqbalay waqti dheer bay qaadatay sida imika qoraalada ka muuqata aan u gudbinay madaxweynaha waxa weeyaan waxa la saxeexay qoraalo kala duwan tusaale ahaan guddiga cadaaladdu waxay saxeexday qoraal 27 bishii koowaad ee sanadkii hore 2016 anigu gudoomiyaha maxkamadda sare waxaan qoraal u qoray madaxweynaha 21 bishii labaad 2016 waxa iyaguna qoraal qoray maxay gudoomiyaasha rafcaanada ee waddanka oo dhan iyo gobolada maxkamadaha rafcaanada iyo maxkamadaha gobolada ayaa qoray bishii afraad ee sanadkii hore marka ilaa maalintii aanu aanimi waxay ahayd hawl aan bilaabay oo aan waday oo madaxweynaha u soo jeedinay oo maalmo meel istaagaysay alxamdulillah marka shalay bay dhameystirantay sidaan sheegayna dikreetadaasi bariga 96 bay soo baxday sukumeer gaaran ahayd oo marka horeba arrin dastuuriya ma ahayn dastuurkii markii loo codeeyayna waxa idin la soo wareejiyay ahayd marka taasina waa qodob marka arrintan maxaynu oran karnaa in ku soo koobi karnaa arrintani waxa weeye waa go'aan weyn oo taariikhi ah oo kordhiyay ama xoojiyay madax banaanida iyo dhexdhexaadnimada garsoorka waa major decision isla markaana waa tallaabo weyn oo hor leh waa milestone tallaabo hor leh oo weyn oo loo qaaday dhinaca cadaaladda iyo garsoorka iyo madax banaanida qaranka waxa kale oo xoojisay arrintani maxay yahay rule of law iyo supremacy of law inuu sharcigu la isku maamulo iyo inuu sharcigu sareeyo waayo waaxyaha qaranku markay kala madax banaanaadaan way sasaxayaan way istilmaamayaan waxa weeyaan si full oo madax banaan oo habarsho lahayn bay u shaqeynayaan taasi markaa dawladnimada xoojinaysa dawladnimada kala dambeynta governance-ka waxa soo dhan bay xoojinaysa waayo hadii waaxyaha qaranku isu cunaan oo ay waaxyaha qaarna dhismaan hormaraan qaarna ay dhintaan markaa dawladnimaduna way la dhimanaysaa waayo dawladnimadan aynu qaadanay waa saddexda dhadhaaraysa isteeli tiraya hadii markaa qaar la waayo ama mid kamid la waayo ama la waayo dawladnimadu way sheekaysaa way baaba'aysaa ma jirayso waayo check and balance maxaa baxaya check and balance isjeegarayntii waaxyu inay isjeegarayaan iyagoo wada shaqeynayo hal qaran bay isku yihiin laakiin check and balance baa meesha ka baxaya marka arrintaasi waa go'aan taariikhi ah isla markaana waa go'aan weyn oo major decision ah marka madaxweynaha aad baan uga mahadnaqaynaa arrintan waan idin sheegay inay markii horeba temporary ku hayeen wasaaraddu in maxay hayday dastuurka ay ka horeeyeen dastuurka intii loo codeeyay uu ka dambeeyay in imakadan laftigeeda dadaal badan oo aan kaliya aanan hogaaminaynin hay'adaha garsoorka iyo cadaaladda oo dhan ay ka qayb galeen waxa kale oo isaguna xitaa qoraal sameeyay garyaqaanka guud ee qaranka oo isna kamida حتى سنة كي هو واحد يقولون قرال سمي أوروك قرينة أو قيب مهمة أي يقولون قرال سمي إليه هنا أرنتاسي وأرين لقى مارمانا أو يقولون ده مكان سوا واحد إنه ذاتك الدفاع حقوق الدفاع مركا وحنا موبلايز قريني ونهو جاميني عرفتيها كل الدول مدحونا نوجد بين مدحونا رنتي وكوكان عي قوان تاريخي اللي جوح الصندوق أيانو قاري وحنا نكو تلماميا waa go'aanadii ugu weynaa ama waa go'aankii ugu weynaa ee garsoorka la xiriira aftidii dastuurka kadib oo dastuurku waxa weeyaan waa isaga garsoorka strong xoog u siiyay madax banaanida waa go'aankii labaad ee marka la eego maxay hayday garsoorka u hiiliyay aftidii dastuurka kadib waayo calafka iyo quudka qofku waxa weeyaan inuu madax banaanaado go'aankiisa iyo fikirkiisa iyo madax banaanidiisu madax banaanaanay ma aha wax sahlan dhaqaaluhu ma aha wax sahlan ma garanaysaa arintan kale ee shaqaale hoosaadkana reformkay bar xooga ka noqonay anagoo horeba reform gareynay wax ka qabanay eegnay la dagaalanay musuqmaasuqa laakiin iminka fully markii lagu soo wareejiyay reformkoodu ama duba habeyntoodu way dhameystirmaysaa oo taasina xoog wax ka tahay labada arimood weeyaan marka intaasaan waana guul qaranka Soomaaliland oo soo hoyatay marka anigoo ku hadlaaya afkii garsoorka oo dhan afkii gudiga cadaaladda afkii bahda cadaaladda waxaan madaxweynaha uga mahadnaqaynaa go'aanka geesinimada leh ee dhiiranaanta leh ee aragtida leh ee uu gaaray oo runtii arrin lagu mahadnaqaa inteedii ka qayb qaadatay oo laleysay hogaamisayna
waxa weeye shaqo fiican bay qabteen midhaheediina waa la gaaray maanta waxaan rajaynaynaa in mustaqbalka soo socdo sanawaad dheer maalin bacid baa joogtay laga faa'iideysto marka waxaan halkan uga mahadnaqaynaa waaniga sheego madaxweynaha waxa kale uga mahadnaqaynaa wasiiradiisa kiiga oo runtii aad uga qayb qaato wasiirka madaxtooyada iyo wasiirka maaliyaddu ay ka mid yihiin iyo kaaliyaasha kale madaxweynaha la shaqeynayay ee staafkiisa magaranaysa ayaa ka mid ah waxa kale uga mahadnaqaynaa wasiirka wasaaradda cadaaladda oo runtii wasiirkan imika jooga maskax furnaan badan sameeyay arintanna waa arkay arin taariikhi inay tahay agaasimaha imika jooga ee wasaaradda cadaaladda si fiican uga qayb qaatay garyaqaanka guud xubnaha guddiga cadaaladda maxay hayday dhammaan bahda garsoorka ugu horeeyaan gudoomiyaasha maxkamadaha rafcaanada waddanka oo dhan iyo gobolada maxkamadaha gobolada oo waddanka oo dhan iyaguna qoraal sameeyay madaxweynaha ka horjeediyay bishii afraad kulan ay la galeen si toos ah uga horjeediyay arintaasi qoraalna u dhiibay isagoo madaxtooyada ku casuumay ururada qareenada oo runtii ay hogaaminayaan magaranaysa ururka Soola iyagana runtii waan uga mahadnaqaynaa dadkaas oo dhan ka qayb qaateen wax gaar ah u qayb qaadan wax way arinta qaran u bayhayd arin inoo wada taaleeyd hadii jaraale dawladda Afrika waxa lagu dhaliilaa oo la yiraahdaa garsoorkoodu wuxuu subsidiary u yahay maxay hayday fulinta laakiin inagu waxaan doonaynaa inaynu dhisno garsoor madax banaan oo jeegareeya maxay hayday waaxyaha kale qaranka fulinta iyo baarlamaankaba oo la yimaado sida imika loogu soo hiranayo inuu ka sii fiicnaado oo maaliba cid u dhiibto ayaynu fulinayna marka tani taasi wax ka taraysa arintaasi wax ka taraysa cid walo wax ka geysatayna arintaasi wax ka geysatay marka intaasaan uga mahadnaqaynaa waxaananu aad iyo aad bay bahda cadaaladdu ugu faraxsan yihiin iyo garsoorku inta labada maanta hor loo qaaday waxa kale oo ballan qaadaynaa in halkan iyadana raacinaya in hab transparent aanu dejin doono maamulka iyo budgetka oo budgetka la daadajiyo oo budgetkaasi uu degmooyinka gaaro oo sanad walba la yiraahdo maxay baahidu tahay gobolka noocaas degmada noocaas ay baahidaas ka jirta iyagu marka budgetkooda maamulaan oo laga galiyo mushaharooyinkooda operational cost-kooda kharashaadkooda wax oo dhan la daadajiyo gudiyo ku ilaaliya ma gaaray budgetku cidii loogu tala galay baadha sidaan imika u leenahay gudiga kormeerka dabagalka iyo baadhida gudi kale oo dhaqaalaha iyaduna baadha oo tuulo wal oo garsoorku joogaba inay gaadho hubisa taana waan dhisaynaa nidaamka chain-ka baan dhisi doonaa waayo ujeedadan anagu la soo wareegaynay waxa weeye in garsoorku hormaro goboladana hadda aragtaan baahi weyn baa ka jirta dhaqaale marka in la daadajiyo iyaga shir baan isugu yeeraynaa ma garanaysaa ay markay rafcaanka gaadho rafcaankuna uu degmooyinka gaarsiiyo iyo goboladu maamulo maxkamadaha gobolada iyo maxkamadda degmooyinka gobolkaas oo dhan uu gaarsiiyo dabadeedna sanad walba la yiraahdo degmada stationary-gi iyo operation-ki iyo shidaaladii wixii haysan hal lagu kordhiyo budgetka oo dabeedna budgetka sanadka la yiraahdo hal la eego qaabkaas aanu dejinaa ballan qaadaynaa si garsoorku uu hormaro oo uu gaaro markastuu wanaagsanaadana waxa weeyaan qof marya cawlan oo calooshiisu gaajoonayso oo noloshiisa ka fikiraya oo aan daily life-kiisii haysani cadaalad ma falayo waa in noloshooda la dhiso waa in ma garanaysaa la hormariyo saawgeed reform-kan aanu wadno in lala xisaabtamo maaha waxa kale oo ku jira qodobo badan oo kani ka mid yahay oo noloshoodii dib loo soo celiyo imika waxa ku jira qodobka kan ku jira ee madaxweynaha ku ballanay ee uu ballan qaaday inuu hirgelinayo waxa kamid ah xeerka xuquuqda garsoorka inuu intaanu xilli ka degin isagana dhaqso loo hirgeliyo marka waxa weeyaan in bay'adeedii waad aragteen maxkamadii baa la hagaajinaya dubadhigis baa socota waxa soo dhan waxay ka mid yihiin mushaharooyinkoodii baa la kordhiyay 2 jeer oo imika waxa weeye dadka ugu mushaharka fiican bay ku jiraan mar kala madaxweynuhu ballan qaaday in la kordhiyo waxaan oo dhan waxay bad ka yihiin in nolosha iyo bay'ada iyo meesha ay u shaqeynayaan iyo quruxdooda iyo dharka iyo dareeska la hagaajiyo si iyaguna ay cadaalad dadka ugu falaan oo ay u gaarsiiyaan waayo qofku markay xaaladiisu fiican tahay ayuu dadka cadaalad u fali karaa hadduu laakiin caqabad ku jiro noloshiisu adag tahay waxa weeyaan cadaaladuna way ku adkaanaysaa marka tan inkastoo aan u aaminsanayn mabda ahaan in la yiraahdo qofku hadduu nolol heli waayo dadka haboobo waxa weey adoo gaajoonayda cadaalad fali kartaa laakiin haddana in la wanaajiyaa cadaaladda si wanaajinaysa marka waanagii dadka u sheegaynay lahayn wargeedka hoostiisa ku garnaqa marka aanu mabdayin waxaan aaminsanahay qofku isaga soo doontay cadaaladda waa inuu falo marka laakiin waxaan sheegaynaa in noloshooda hagaajino waana ka badh oo iyagii in la baaro oo lala xisaabtamo oo ma noqonayse in noloshoodii la hagaajiyo loo doodo loo advocate gareeyo oo inta imikana intaasoo qodob baa hirgalay mushaharkii la kordhiyo maxay hayday bay'adii oo la hagaajiyo
cabashadoodii oo la dhageysto waa tan mushaarkoodii oo la soo wareejinayo xuquuqdoodii oo la sugo oo xeerkiiba imakana socda intaasoo qodobo nolosha lagu hagaajinayo ayaanu gaadhnay marka arrintan waa arrin weyn aad iyo aad baan markaa uga mahadnaqaynaa waana mahadsantihiin dadka aan sheegay oo dhamina mid walba rool buu ku lahaa waxa weeyaan arrintana go-aankan madaxweynuhu shalay qaatayna maaha cid baa guulaysatay cidna way guul daraysatay hay-adaha qaranku waa isku mid wasaaradda shalay haysay waa wasaaraddii Soomaaliland ee cadaaladda weligeedna way ahaanaysaa cid gaarina male maxkamadan sarena waa maxkamadii guud ee Soomaaliland cid gaari male waa qarankuun baa leh marka ma jirto cid guulaystay cid laga guulaystay waxa weeyaan waa go'aan taariikhi ah oo cadaaladda iyo garsoorka loogu hiiliyay weeyaan dhammaanteen haddaynu reer Soomaaliland nahayna waxbay inoo taraysaa marka arrintaasina waa sida aad iyo aad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh